dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay oo ay bisha Maarch ahayd 2018 soo saartay war-saxaafadeed ay kaga soo horjeedo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee kowdii bishan dhex maray dowladaha Jamhuuriyadda Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. haddaba war-saxaafadeedkaas ayaa ahaa mid isburinaya sidan hoos ku cad. qodobka koowaad waxaa lagu sheegay in laba dhinac oo kala ah DP World iyo dowladda Ethiopia ay heshiis wada galeen arrintaasi oo dhabta aad uga fog. qodobka labaad ee war-saxaafadeedka waxaa lagu caddeeyay in Somaliland, Ethiopia iyo DP World heshiis wada galeen ayaga oo markii hore istiidsiiyey inay xusaan jiritaanka darafka Somaliland. qodobka saddexaad ayaan darro waxaa ku cad inay istiidsiiyaan inaynu ahayn laba dal ama laba dowladood oo midoobay 1961 kalana baxay 1991 taasi oo ah gef iyo gardarro badheedh ah oo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland lagula kacay. dastuurka ay sheegeenna uu yahay mid ayaga u gaara. sidaasi awgeed waxaanu madaxda dowladda federaalka Soomaaliya xasuusinaynaa in Jamhuuriyadda Somaliland ay leedahay kuna dhaqanto dastuurkeeda kaasi oo dadkeedu 97% u codeeyeen rubco qarnina lagu soo dhaqmay. in qodobka 9aad faqradiisa 6aad ee xeerka ama dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland dhigayo inay Jamhuuriyadda Somaliland heshiis la geli karto cidii ay doonto. in madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay bishii December ee 2014 magaalada Djibouti ku heshiiyeen inaan la siyaasadayn heshiisyada mashaariicda lagu horumarinayo gobollada Geeska Afrika. inaanu heshiiskani ahayn mid cusub ee uu yahay dhamaystirka heshiiskii bishii August 2016 ay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World ku wada galeen baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland oo ansixiyay. inkastoo aan Jamhuuriyadda Somaliland la aqoonsan haddana lama diidi karo xaqiiqada jirta ee ah in adduun weynuhu ka warqabo in dadka reer Somaliland ay dowladnimadoodii la soo noqdeen. waxaana marag u ah ama marag ugu filan in ra'iisul wasaaraha Xasan Khayre oo jooga dalka isu taga Imaaraadka Carabta heshiiska duwaliya ama hortiisa lagula saxiixday Jamhuuriyadda Somaliland. riyada midnimada Soomaaliyeed intaanu ka hadal waxaa ka haboon inuu mideeyo degmooyinka magaalada Muqdisho ee aanu maamulin. ugu dambeyntii waxaanu filaynaa in dowladaha Geeska Afrika soo dhaweeyaan heshiiskaasi horumarineed oo waxtar weyn u leh dadweynaha iyo dowladaha gobolka intaba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.